iminka markaa waxaynu soo gaadhnay hadalkii maanta oo dhan aynu soo wadnay ayaan idin tusayaa jadwal qoran sida loo geliyo ilaa marka xaafadii tagta waxaan u baahanahay inaad buug iyo qalin intaad qaadato aad jadwalkii aad samaysatid jadwalkii noloshaadu ay ku kala socon lahayd aad dejisatid fikradda markaa maanta aan ka soo qaatay waxaa loo yaqaanaa the 12 week year buuggaas ayaan soo qaatay buug aad u muhiima weeyaan oo aadna idin anfacaya haddaad heli lahaydeen waxaa loo yaqaanaa magaciisa the 12 week year inta badan dadku markuu sanadku dhammaado waxay idhahdaan maxaa kuu qorshaysan sanadka soo socda ama maxaad qorshayn lahayd yeerka soo socda markaa sanad dhan aad qorshayso qaybo fara badan baa soo baxaya waxaa soo baxaya inaanad ahdaaftii aad qoratay aad waxba xaqiijin weydo waa in naftu been bay kuu sheegaysaa waxay ku leedahay sanad baad haysataa inaad ka caajistaa soo baxaysa markaa fikir cusub oo waxaa jira oo ninkani soo kordhiyey oo loo yaqaano the 12 week year sanadka ka kooban 12 usbuuc marka halkaad ka qorshayn lahayd sanad dhan waxaad qorshaynaysaa 12 week 12 week waa imisa bilood weeyaan 3 bilood weeyaan marka sanadkii waxaad u kala qaybinaysaa 3 bilood qayb walbana qorshe gaar ah ayaad u samaynaysaa marka qorshiyo sawiran baa iminka idin tusaya wuxuu yiri marka koobaad qorshaha 3 baa loo qaybinayaa mid waxa loo yaqaanaa kuwa waad soo dhigateen waxa laga yaabaa iminka dadkeena daawanayo kale inay ku adkaato iyaga laakiin idinku aad baad u fahansantiin 3 baa qorshaha loo qaybinayaa mid waxa weeyaan waxaad samaysanaysaa vision ka soo hore ma inaan dhigan iyadoo mashaariicda lagu sameeyo waan dhiganay midna waxaad samaysanaysaa goal ahdaaf midna waxaad samaysanaysaa waxa loo yaqaan tactics ereyga tactics hore inuu dhiganay halkan terminology-gan mar labaad inuu soo noqday laakiin waagan dhigan jirnay operational planning-ka waxa la oran jiray agenda marka halkan waxa loo yaqaan imika tactics baa la yiraahdaa waa kan marka iyadoo samaysan horta waxaan rabnaa qofkii aanan caadi u fahmin bal inaan u sheegno saddexdan erey waxay kala yihiin vision maxaa loo yaqaanaa vision aragti baa loo yaqaanaa af Soomaali ahaan waa aragti maxay ka dhigan tahay waa clear perception for future in aad muuqaal fiican ama clear aad ka haysato mustaqbalka halka aad tagi doonto marka mustaqbalkaaga inaad garanayso meesha aad u socoto ayaa vision loo yaqaanaa goalna waa inaad leedahay ahdaaf waa inaad samaysato goalka marka waxaad samaynaysaa technique hore soo dhiganay oo loo yaqaan smart kaana hore inuu dhiganay marka ahdaaf baad samaysanaysaa ay gorta imika maxaa niga marka xafid tigtiin vision baad qoraysaa kadibna goals baad dejinaysaa goalsku si smart aad qoraysaa waa inuu noqdo goalka aad dejinaysay mid specific oo measurement oo la qiyaasi karayo oo realistic oo time-kiina wata time-ku imika waa 3 bilood baad dejisanaysaa noloshaada 3 bilood soo socota ama sida kale marka loo yiraahdo 12 week soo socda ayaad qorshaha aad dejisanaysaa waayahay marka hadafka aad dejinaysaana waa inuu noqdo specific mesela waxaad leedahay waa in aan barto photoshopta waa hadaf 3 bilood soo socota ku xaqiijin kartaa wax waaqiciyana waa inuu noqdo wax 3 bilood lagu baran karayo marka saas ayaad u wadaysaa tactics-kuna waxa weeyaan waa qaabka aad hadafkaaga u gaari lahayd tusaale yar baan ka bixinaa imika hadduu ujeedadaada ama hadafkaaga uu yahay waxaan doonayaa inaan lose gareeyo 5 kg of weight 5 kg ayaan rabaa inay iga dhacdo markaad is eegto miisaankaagu markii saxdiiba 5 kg baan doonayaa inaan lose gareeyo 3 bilood soo socota maxaan dejisanayaa kaas hadduu goolkii yahay tactics-kan hoose tactics macnaha waa qaabkan u gaari lahaa waxaan qoray imikaanu 3 iniguma nigu fahansiinaya مثلا waxaan idhi waa inaan socdo half an hour every day maalin walba saacad barkeed waa inaan socdo waa seen hadafkii u gaadhay labo inaan iska ilaaliyo inaan wax cuno 3 saacadood ka hor marka aan seexanayo markii hurdada soo dhawtaa 3 saacadood ka hor inaan waxba cunin 3 inaan cabo galaas biyo mar kasta oo aan cunto cunayo waa seen hadda cunto badan aan u isticmaalin 3 tactic baan ku gaari karaa goolkaygii ahaa inaan lose gareeyo 5 kg marka 3 qodob baan imika ka baanay marka xaafid tigtiin vision baad qoraysaa kadibna waxaad dejinaysaa goals kadibna tactics baad samaynaysaa iyadoo marka jadwalaysan baa imika tusaya saan soo socda qoraysaa way warqad baad soo qaadaysaa maran computer ka ku qoran kartaa buuggaaga ku qoran kartaa waxaad ku qoraysaa my vision for the future aragtidayda mustaqbalka soo socda waxaan u qaybiyay 6 qaybood waxaan leeyahay the role of faith and worship xagga cibaadada iyo aakhira marka la eego aragti noociya ayaa kaaga degsan macnaha qof noociyaad rabtaa inaad noqoto markaad qoran kartaa qof ilaahay u dhowaan rabaa inaad noqdo salaada waqtigeeda ilaaliya quraanka xafidsan aragti baad dejisanaysaa labo socialka
maxaa fishan ku degan xiriirka waalidka iyo asxaabta iyo qaraabada saas aad dejinaysaa saddex xagga cilmiga maxaa qorsho kaaga degan macnaha waxa weeyaan maxaad rabtaa mustaqbalka cilmi ahaan inaad noqotid qof caalima intaasoo shay garanaya intaasoo luqadood ku hadla intaas kombiyuutarka garanaya ayaan rabaa inaan noqdo afar health role caafimaadka waxaan doonayaa inaan noqdo qof caafimaad qaba oo caafimaadkiisu dhammaystiran yahay xanuun haddaan leeyahay inay iska soo daweeya marka imika inta waa tusaalayaal dee hadhow baad iska qoran doontaa financialka dhaqaalaha halkeebaad rabtaa inaad ka gaadho lixna skillska xirfadda halkeebaad rabtaa inaad ka gaadho intaa ma arkaysaa waa lixdii qaybood ee ay noloshu u qaybsanayd mid walbana waan idii qoray ama waan idii sheegay halka ugu hooseysayd ka gaadhiso marka buugay kugu qoran tahay slideskana waan siinaya maxaad samaynaysaa marka waad soo kala furaysaa matalan xaggii cibaadada ka soo bilow ahdaaf ama goolis samayso horta vision markaad qoratid cibaadada waa in halka ka gaadho kadibna goolis baad samaysanaysaa saddexda bilood ee soo socda maxaan horta xaqiijiyaa wax badan baad xaqiijin kartaa inaad salaadii sunnadii ku dadaashid faralkii inaad ku dadaashid quraanka inaad qaybaad xafido wardigii inaad simid wax badan baad saddex bilood qaban kartaa imika soo socda socialka saddex bilood wax badan baad qaban kartaa cilmiga saddex bilood wax badan baad baran karaysaa haddaanad been naftaada u sheegin afar caafimaadkaaga saddex bilood soo socda wax badan baad ka bedeli kartaa saasaad u wadaysaa waayahay waxaan ka soo qaadayaa aan go'aansaday inaan saddexda bilood ee soo socda labadaa shay qabto horta mid baan igula talinayaa ahdaafta aad qoranaysaan hadday kuwa badan oo waaweyn yihiin saddex yayna ka badan yihiin maadaama wuxuu saddex bilood ay tahay hadday ugu badatana shan yayna dhaafin marka taasi waa qaacidada guud ee tala ahaan idiin siinayo waayo dee ahdaafta farabataan goolisku xaqiijintooda ayaa adkaanaysa waxaa ka soo qaada anigu waxaan doonayaa 12 wiiga soo socda labadaa shay inaan xaqiijiyo inaan luusgareeyo 5 kg ilaa waan is eegay miisaankayga inaan ogaaday 5 kg baa igu siyaada abaan idhi tusaale ahaan inaan iska ridaan doonaya waxaa kaloo rabaa photoshopta inaan barto saddexda bilood ee soo socda soo intaasi kaama go'na jadwalkaan u baahnaa inaad aragtaan waa kan saanoo kala fiirsanaysaa jadwalka waxaad qoraysaa the first weekii ugu horreeyey marka caawa markaad jadwalkan dejisato berri waa sabti wiigga ugu horreeya waa inuu berri kuu bilaabmadii wiiggii ugu horreeyey baan qoraya waxaan leeyahay from halkaa waxaa ku qoraysaa taariikhdii berri bishu waa imse socotaa berri sala bishu 30 weeyaan from 30ka bisha ilaa iyo wiigguda intuu halku ku dhamaaneed gaarsiinaysa marka eegada 12 wiig oo dhan maan wada dejinin maxaan dejiyay waa first wiigii ugu horreeyey imse hadaf baan leeyahay saddexda bilood ee soo socda labo inaan 5 kg ka rido iyo inaan photoshopta barto waxaan soo qaaday tii ugu horreysay photoshopti jadwal noocaas oo kale markaa u sawiraysaa xagga waxaad ku qoraysaa tactics photoshopta inaad barato maxaa horta kaa caawinaya xaggaana waxaad ku qoraysaa maalimihii jadwal weegii oo dhan ku qoran xaggaana waxaad ku qoraysaa success rate macnaha waa percentage-ka intaad ku guulaysatay marka tacticska midna photoshop inaan barto weegii waxa iga caawinaya 5 inaan daawado cashir iyo inaan review ku sameeyo muraajiciyo kadib weegii ugu horreysay baan u dejiyay waxaan sameynayaa sabtidii haddaan daawaday hal cashir tik waan saxay axadii haddaan daawaday waan saxay isniintii waan ka booday hawl baan lahaa dhabici salaasadii waan daawaday waa saxaysaa arbacadii waan daawaday khamiistii waan daawaday jimcadii fasax baan iska ahaa waa maalin nasasho waqtiyo nasasho inaad heshaan waan igin sheegay dhabici markaan isqiimeeyay weegii eeg waxaan markuu weegii dhamaaday ilaa maalin walba saan baad soo xasay sabtida dhig axad saas wada wadaysaa weegii markuu dhamaaday waxaad eegaysaa percentage intee in leeg baad ku guulaysatay waxaan idhi alla ilaahay weegan boqolkiiba 90 buu ahaa guusheeda marka weegagii waad kala badnaani qaar boqolkiiba boqol baad gaari qaar 90 qaar 80 haddana markuu weegii saa ku dhamaado jimcihii la gaadho maxaad samaynaysaa jadwal noocan oo kala haddana weegii labaad baad qorsheynaysaa haddana weegii saddexaad saasaad ku dhamaysanaysaa marka 12 week 12 week markay dhamaadaan waad daadinaysaa goolishka hore waayo wada wala wada xaqiijiyo laga shaqeeyay kuwa cusub aad samaysanaysaa haddana saasaad ku bilaabaysaa marka imika cashirkan waxaa laga yaabaa inagu imika sanadkii iyo bilow aan joognaa laakiin walaalahayna daawanay kala xasuurgala inayna waqti dambe ay daawadaan baa laga yaabaa marka noloshaada ha ku xidhin imika markii sanadku bilaabmay baan doonayay inaan inta maalimihii intaan bilaabmin in yar ka hor baan doonayay cashirkan oo kala dhigitaan laakiin maalimaha xamaasadda aad u badnayd waxana xamaasad looma baahna waxa marka nolol ay noqoto fikir baa loo baahan yahay
iyo inaad maskax ku dejiso marka imika xamaasadii way niga soo wada dhamaatay waxa diyaar u haydeen in aynu qorshihii dejino saas ayaad u waxaynaysaa talada ugu dambeysana waxa weeyaan markaad saas oo kale u sawiratay jadwalka samaysato waxaad ku dadaalaysaa wiigaaga oo kaliya inaad ka fikirto مثلا waayo waxa aan garanayaa oo dhici doonta inaad malaha wiiga laga yaabo 50% inaad wax qabatayba oonad wax badan baanad qabanin kadib naftaada waxay kugu sheekayn doontaa niyo aad u faashil baad ku tahay xagga qorshaha iyo waxaas ha ka yeelin wiigani waa dhamaaday iska xid jadwalkiisina meel dhigo haddana wiig dambaad bilaabaysaa iska xid haddana meel dhigo haddana 12 wiig markay dhamaadaan ayaad isqiimeynaysaa haddii aad dhaafto 80% aad kor u dhaafto congratulations hambalyo aad baad u fiican tahay haddii aad ka yar tahay lafteedana ha iscanaaninin haddana ku soo celi halkii ka sii bilow waayo eg inagu imika markaan jaamacadda joogno ardaygu hadduu 50% ka hooseeyo f baa la soo dhajiyaa laakiin noloshu sidaa maaha maanta photoshoptan anoon in garanayn baan bilaabay ka soo qaad 12 wiig baan dhiganayay 12 wiig waxaan ka bartay 50% oo faashil baan ahay aqoon cusub ay soo kordhayba kusii daro wad faa'iido bay ka dhigan tahay marka faa'iidada iyo markaad kala xisaabinaysaan iyo khasaaraha mar walba ha ka dhigin 100% inaad wixii aad ku guulaysato adoo hadda isku dayaya haddana haddii ay dhacdo baan ku leeyahay 100% ha ka dhigin marka qaabkaas ayaa noloshaada loo qorsheeyaa waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen noloshuna sidaa u dheelitirnaato from laga soo bilaabo cibaado iyo aakhiro ilaa maxaan ku soo gabagabeynay adduunyo iyo xirfado loo baahnaa sidaa kugu dheelitirnaato imtixaankiina waad marteen qof walba darajadaad keentay waad arkaysaa waxaan doonaynaa inaad intaad dadaasho 3 bilood kadib haddana aad isqiimayso haddana aad eegtay intaad soo gaadhay 200 baa lagu doonayay 200 markaad 190 yaad gaadhay 295 iyo markaasaan odhan karnaa noloshaadii 100% sidii loogu talagalay ee saxdii ayay u socotaa waxaan kusoo gabagabeynaya horta halkaas inoogu dhamaaday maanta cashirkii tababarkiina waa inoo dhamaaday laakiin waxaan idin siinayaa 2 ama 3 talo waxaan badnay talada koobaad waxa weeyaan in aad muxuu ahaayay noloshu waxay leedahay priorities ahamiyad bay kala leedahay marka oodiba oday ka weyntahay si kala weyntahay waa in loo kala guro marka ahamiyadda waxaad ugu horreysiinaysaa xiriirka aad la leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadaad ku xigsiinaysaa qur-aankii salaadii inaad meelaha ka adkaato priority-ga waxa kaloo kuule muxuu ahay waalidkaaga xiriirkoogii caafimaadkaagii saasaad u kala wadaysaa marka adduunyo iyo aakhira marka ay noqoto aakhirada horreysiinaysaa adduunkiina waad ka dabageynaysaa taasi waa qodobka labaad ee idin sheegay waxa weeyaan adduunyadan intaynu ku nool lahay way yar tahay waxa la qiyaasaa adduunyada imika dadka ku nool marka mutawasidka celcelis ahaan la eego waxay ku dhintaan 65 sano intaynu inaga imika halkaa fadhiday inta ugu badan 65 haddaynu ugu badano 65 baynu gaari doonaa in badanoo inaga naga mid ama in badanoo dadka ka mid yihiin waxay iyagoo aanan halkaaba xataa u dhoweyn ayaa laga yaabaa qofku inuu dhinto marka maxaan uga dan leeyahay xataa hadday 65 ka dhaaftidba dee waxaad ku dhaaftaay waad garanaysaa waa qofkii gaboobay oo da'diisiina ay muxuu ahaay weynaatay oo shabaabnimada inay ka dhamaatay marka ni waqtiga imika 65 kaagii aad ku xisaabtami lahayd haddii ilaahay ku daayo 65 kii already in badan baad cuntayba in badan imika wayba tagtayba soo maaha inta hadhay aynu ku dadaalay inaynu ka faa'iidaysano oo qorshe la nimaadno ma hayno waqti lagu ciyaaro ama maalayacni lagu sameeyo ama xumaan lagu sameeyo ama dembi lagu sameeyo ama lagu ciyaaro ma hayno waqtigeenu waa qaali inta yar baa ku harsan wad eeganaysaa waad ku xisaabtamaysaa inta yar ku harsan baa la doonayaa inaad aakhirana aad wax ka qabsato ilaa ma soo noqonaysid one time baad nooshahay adduunyadaadana aad wax ka qabsato loo baahan yahay qodobka saddexaad ee idinku dhiirigelinaya waxa weeyaan in ay noloshaadu ay yeelato routine la isla garanayo routine macnaha waxaan ka wadaa imika salaadu ilaahay wuxuu inooga dhigay waqti go'an bay leedahay waxaad ka warantaan haddii la oran lahaa qof walba markaad awooddo tuko waxaan hubaanin inay tukadeenba ama mar uu la isku dardari lahaa maxaa keenaya laakiin in waqti walba la tukado waqtigii baa go'an way ku dhaafaysaa sidaas oo kale aad noloshaada basic u samee waxaan igula talinaya waxa kamid ah inaad hore u kacdo haddii ay jirto hal sifo oo ka siman yihiin dadka maanta adduunyada guusha gaaray oo dhan waa inay hore u toosaan markaas ku day inaad hore u kacdo
oo aanad hurdada aanad ku habsaamin adduunyo iyo aakhiraba waad ku guulaysan doontaa haddii aad hore u kacdo marka waxaad isku dayaysaan inaad salaatuleylka xagga dambe aad ka tukataan hadday kuu suuro gasho horeyna aad u kacdo salaada subaxna aad tukato marka noloshaada waxaad samaynaysaa waqti ay toosto iyo waqti ay seexato haddii laakiinse maalin walba markaad doontaa iska soo kacayso maalin walba markaad doontaa iska seexanayso dee waxaasi nolol maaha time baa loo sameeya waqtigaana waa inaad kacdo wax kasta hadday hurdo kasta hadday ku hayso waqti go'an unbaa la soo kacaa hadhow baad buuxin doontaa haddii maalimahaad hawl iyo wax lahayd dib baad ka seexan doontaa saasaa la sameeyaa markaa saddexdaa arrimoodna waa saddex arrimoodoo aan waxa weeyaan tala ahaan idinka aan idiin siinayo waxaan kusoo gebagabeynaya waxaan rajaynayaa maanta inaad ka wada faa'iidaysateen cilmiga halkan kusoo bandhignay intaasoo buugoo kala duwan iyo intaasoo lagjar iyo intaasoo aad muxuu ahaay kala duwan dhegaysan lahaydeen ayaa one time iminka maanta aad qaadateen hal marna aan idiin soo wada bandhigay imtixaankeygiina aan idiin soo turjumo welibana aan af soomaali aan idinka soo dhigay marka waxaan leenahay ilaahay haynaga dhigo kuwii ku anfaca oo muxuu ahaay wax u tarto aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanaha qofku markuu wax dhegaysto yuhuuddu ayuu ilaahay ku tilmaamay inay ilaahay ku yidhaahdeen samicnaa waan maqalay horta waa casaynaa laakiinse waan iska diidnay marka mu'miniinta ilahay wuxuu ku tilmaamay aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanaha hadalka markay maqlaan kiisa wanaagsan way raacaan kiisa xunna way iska daayaan xagga caafimaadka markay noqoto na waxaa loo baahan yahay inaynu ku ducaysano ducadii nebiga calayhi salaam duca aad u fiican nebigu inoo jideeyey wuxuu yidhi allaahumma maticnaa biasmaacina wa absaarina ilaah waxaad noogu raaxaysaa maqalkayaga iyo araggayaga wa quwaatina iyo awooddayada abadan ma axyaytana intay noloshu nagu jirto ilaahu noogu raaxay waayo haddaad gabowdo ood haddana dhinacna wax ka arki laadahay dhinac maqalkii maanta oo hadalkii lagugu celcelinayo dhinac way iska hawl badantay marka waxa lagu ducaystaa weliga allahumma maticnaa biasmaacina wa absaarina wa quwaatina abadan ma axyaytana wajcalhu alwaaritha mina wajcal tha'rana calaa man dalamana wansurna calaa man caadaana wani ducaysanna walaa tajcal musiibatana fii diinina ilaah waxaan leenahay musiibadayada xagga diinta ilaahu nooga ilaali adduunyada inay musiiba kaaga dhacdo waa iska caadi laakiin diinta waa khatar weeyaan walaa tajcal iddunya akbara hamina ilaahu hamigayga ugu weyna ka dhigin adduunyo iyo walaa mablaqa cilmina walaa ila annaari masiirana wajcal iljannata ilaahu jannada waxaad ka dhigtaa hiya daarana wa qaraarana daarteeda aanu ku dambayn doonana ilaahu janno nooga dhig ayaanu leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin hadday wax su'aali jirto welcome waa caadi waan ka jawaabaynaa haddii kalena aad baad u mahadsantihiin waynu iska bixi karaynaa okay wax su'aalayaa